habeen hataa waxaa uu soo kacay maxaa la dhahay iyadoo muuqaal la duuba rabo anoo oo gabsaar la'aan oo jiifo muuqaal la duuba rabe uu soo kacay هذا محاكا ودا إذا بدرده محاواي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لهي قالي أنا جلس على الجنة كان شيء بشرف واحد ليه هاي السور دوادة هدي أتهمك كوبادات سابقة الجنة كان فضلا سبسكرايب له كم بريل كفرو سيادو نقطة داودا كوباد يا داودا برنامج دينا هذا هورين ولا جوكتين وكم هسنتها هاي الجوك استاد قروح بدن يصير أصحابتي قروح بدن ومن نقطتين جنة كان جلس عتين وجنة كان شيء بشرف ولا لهي قلبي سيدي هاد جيرتان بوجيدين halka waxa idinka ka muuqday gabadh aad wada taqaaniin oo ayaamahanba baraha bulshada haysatay iyada iyo ninkeedii dabcan iyada iyo soojkii qabi jiray dabcan wuu qabaa iyo ma qaba mid lihi maayo meel isku furan iyo meel isku noqdeen midna anigu ma taagnay gabadhu waxay ina leedahay wala ay furay oo qof madax banaan baan isaguna wuxuu leeyahay xaaskeyga ma furin dabcan nimankii hadda waxay ku soo bateen oo iskugu soo biyo shubteen Soomaalida aha inta gabadhii furaan bay hadawna waxay oranayaan gabadhii ma furino iga ma furna yani waxaas wax aqliga gali kara ma ahan oo de ku tiri ku teen iyo bahalkii toona imaan mayso ma garateen dabcan iyadu waxay leedahay wuu ifuray waad ifurtay rajactu haddaad itirina aniga rajactu kugu soo noqon maayo dabcan mumkin waxa laga yaabaa intuu furay oo wax ka dhaceen in uu yiri waan soo cishtay oo de hadduu soo cishtay dabcan wali wuu qabaa oo haddii uusan dalaaq labaad ridin uusan gadaalka furin wali wuu qabaa haddii intuu furay haddana soo cishtay balse marka aad furtid oo soo cishanaysid inta aanay cudadu ka dhamaanin ka hor waa inaad u sheegatid oo maxaa la yiraahdaa gabadha qaraabadeedii ehelkeedii iyo iyada laftigeedaba waa inaad ogeysiisid oo la socodsiisid okay dhanka qabniinka halka noo dhig waxa soo haray arintan gabadhan hadda aad uga jeedeen fiidiyoogii maqtac yarka ah oo soo qaatay oo aan hordhaca ka dhigay aad u jeedeen ay leedahay ninkii qayba waxa igu sameeyay waxa social media ku soo batay nimankii iyo naagihii isqabay oo isfadeexaynayo isceebaynayo ninkana naagtiisa mara ayuu u yahay asturaad gabadhuna sidoo kale soojkeeda asturaad iyo mara ayay u tahay laakiin si waxa ku soo batay baraha bulshada bariyahan raggii isqabay iyo raggii dumarkii isqabay baan leeyahay dabcan raggii Soomaalida ahaa oo sharafta iyo qiimaha lagu yaqaanay in xaasaskoodii ay ka duubaan fiidiyoyo ayaga oo dhankii sariirtii ama dhankii gogashii wadaagaya taasina waa arin runtii baraha bulshada ku soo badatay ama social media han markuu yimid ku soo badatay wadankeena Soomaaliyeed ama shacabkeena Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada nimanka ee Soomaaliyeed gabadhu waxay leedahay waxay igu handadayaan soojkeygii iyo dhalinyaradii kale waxay iga duduubi jirtay waxay igu handadayaan waxaan ka haynaa muuqaalo foolxun ama muuqaalo aad qaawan tahay oo adiga iyo shakhsi aad wax sameynaysiin oo kale dabcan واسيدي gabadhu hadalka leedahay waxay tiri hadii arintaasi ay jirto waxa aniga wax iga duubay waa ninkii aniga qabay oo aan aaminay bay tiri yani idinkaga hordhicin yani idinkaga hordhicine bal walaalaheeyow ila dhageysto oo ila daawada oo waxaad idinka dad waaweyn baa tihiine gabadhan hadalka ay ku hadlayso runtii ma ahan yani shakhsigii koobaad ee ugu horeeyay ama kii labaad ama kii saddexaad oo arintan oo kale ay qabsato maalin dhawayta u jeeda gabar dhaaranayso dhahayso muuqaalkaas goor iga duubay ilaahay way iga tahay ma ogeyn marka adiga duubtana waad qabtay haddana waanu kala tagnay runtii arintani way ku soo badatay baraha bulshada way ku soo badatay shacabkeena Soomaaliyeedna aad bay ugu soo badatay raggii dumarkii ay qabeen in ay ka duubaan muuqaalo dhanka sariirta iyaga oo la sameynaya waa markii ay kala tagaan ay baraha bulshada keenana ku handadaan hadda waa tani bal ila dhageysta walaalaha qaaliga ya taada kale ay iigu handadeen maslaxo muuqaal galmaaliga ahaaya ana adaa xaaskaaga ahaa hatta ina Nairobi joogi abi cabsiiseen misana aad anoo ogeyn wax muuqaal galmood igu sameeyeen duubteen si ragnimadii social media lagu soo dhigi lahay loo baahan yahay waa markii saddexdiina batiirkan la geenayo taasni la wada marsiinay maslaxay muuqaal galma aha liga haya ana adaan marwadaadi ahay meeshaan fadhisay rufyaanyo xunka ya muuqaal galmi waxaas anama ku cabanaag sharmuuto oo tumanaysin ma bihi baani ma fahanteen naag la qabaan ahay ana hadan gaay ahay inta meel aad igeysid ani xayisiisa halkan saakasiya maxal dhahay ma aadan dhihi lahayn ya baahiyo baahida kala jiran akoonkaada lacag ku jira iga xasdeesi aan iska aamusnaa ilaahayna sharmuuto igama dhigo ilaahayna dhilla igama dhigo الحمد لله
wixii calafkeyga cunaa wixii aan helaa maanta wax ku iibsanaa laakiinse ogow haddii muuqaal oo anoo qaawan amase anoo si aad soo dhigtaan baraha bulshada ama meel aad soo dhigtaan raganimadii Muqdisho laaga bariiseen lahaa ayaa loo baahan yahay madax sabuul madax digsi madax baaquli saddexdiina idin haastaa madax sabuul madax digsi madax baaquli ani naag la qabaaya ahay hadaa muuqaal anoo naag la qaba iga duubteen si baraha bulshada lagu soo dhiilaan u baahanahay haddana naag garoobaan ahay waana madax banaanahay cid maxaa la dhahay oo maxaa la dhahay aan ka cabsanayna malahan cid qabta malahan be bismillaahir rahmaanir rahiim cid qabta malahan anoo maxaa la dhahay oo xaaskiisii ahaa يعني أهاوي أنا حاسكيسي أها لي ده موقال أصلا مش فري موقال قلمالي جاها أني يا لطنت أني نهارت أبارتمنتي على دي حاجة كل معنا كل أو يرى كل فدي يجيكو هدي أنا هرداي بيا وحلي أقدر أنا هرداي وحلي يقدوبني معقول أنا قابل سيسي كدعي إلا وايو محل ده ماشي nin mas'uul ee meesha ma ii geysanin baani waayo nin jiljilacsanaa meesha ii geystay ya oo lacag leh u daran tahay ani sharafteeda hadaa lagu tumtay hadii kale waa lisla arki doon waan lisal Muqdishona waa lisla joogaa ilaahay baa idinku dhaariye ninba intuu xaaskiisa oo xalaash ahay video ay qaawan tahay oo ay dhanka sariirta wadaagayaan uu ka duubo ayuu hadhowna markay kala tagaan wuxuu ugu hanjabayaa video baan ka hayaa waxa igu ballana inaan baraha bulshada ku soo dhigo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un adduunyo tagtay oo aakhiru sabana ayaan dabada haysanaa dabada waxaaskiisii xataa qof ay wada sheekaysanayaan oo qalad ay ku wada dhaceen ma aha qof maxaa la yiraahdaa fusaqad oo markeedii hore suuq ku jirtay ma aha waa gabadhii xaaskiis ahayd oo xalaash ahayd oo guriga u joogtay bal naag markeeda horeba fusuqad ahayd oo saaniyad ahayd oo tumanaysa iyo nin saani ahay oo tumanayay oo markooda horeba fusuq ahaa wixii iyagu iska duubaanay wax isku handadaan laakiin laba qof oo Ilaahay isku xalaalay oo isqaba oo isguursaday inuu gabadhii uu qabay oo asturaad oo ahay intuu ka asturi lahaa video qaawan intuu ka duubo uu ku handado يعني أنا قاعد أشاهد معي ما ندها يقول كان قبلان وكدوبة يوارون وحش يجيسوا بلا يوحيا إنك سكلا لكن أرين تقبلني كده واجنا يسوا أرين برها بلشة سوينو هاي ستا كوسون نقطي ولبا لكن الصومالي هدينو نهاي نوصل بلاتيوية ما أهن يعني أرين أو ينوجو أجباء أما ينوجو عصب معها رنتي قبل التاني وحلوها أنت تسي شيء يصير إن موقال إيقاون تهايو وح كلا سماي وح سمينا يسوع إن لجا هيو وهي تاني موقال كسد اللي يجا هيو وح يجا دوبي وانين كيجا إتكلم معهن يسقي بنا يوه أنت ذي وسيدا يوضو لا هاي أنا بشاهد منهن إلهي سبحانه وتعالى بقول حيل بدودا يسقى أنا مرخاتئة يسقى أنا كورقبة إلهي بنا بقولك أرنتن سي هدي جرتو رنتي وأرن لو باهي هاي شعب كاي دنيرد الصوماليين بيني ككعان كندي ديان qofkii ama ninkii xaaskiisa waxa kula dhaqmana in maxkamad sharciyeysan la taago meel ka soo dunida ka taagan yahay maanta toole wadankeena dawlad way ka jirtaa habal liidato dawlad eberkeeda ahaato laakiin dalka gudihiisa waxaas haduu ninku ku sameeyo in la soo istaajiyo sharciga la marsiiyo hadii qurbahan ama qurbanaca saato ama qurbahan kale to ha aatee waxa ku sameeyna kadalika idana saas oo kale sharciga loo marsiiyo inay shacabku ka kacaan oo dhalinyaradu ka kacdo iyaga loo baahan yahay waxaan kale to إلى دقيسو واتنا قبدي أيضا إنو ففاهنسا هذا الكيدنا إنو سيودي بالدقيستا هبين حتى وحا أو صاقع محل دهاي إذا موخالي يدوبا ربو أنو أو قبسار لآن أو جيفو موخالي لي يدوبا ربو أو صاقع هذا محا كودا إذا بدرد محاواي ما haddii lagu dhaho ninkaago meesha fadhiyo saddex rag kalena ee fadhiyaan oo lagu dhaho maslaxo muuqaal galmaaliga haya
hiblaayo muuqaal galmaaliga ahaya oo asna yaa ka duubi kara asleeba ka duubi kara yaa kaloo ka duubi kara yaa waxaan ninkaaga ahayn oo ka duubi kara ma jiro waa may gabadhani ay ku dhawaaqayso waa hadal sax weeye hadal sax markaan leeyahay waxay tiri aniga ma ahi qof tumata qof suuqa ku jirta qof faaxishada marwal qabo ayaan ahaabay tiri hadda maaha marwal qabo ayaan ahaa waana dhageysateen habeen waxa ugu soo kacay bay tiri ayadoo raba in muuqaal la iga duubo runtii arintani arin aad looga murugoodo looga naxway arin jirta haday tahay gabadhan say sheegayso arin jirta haday tahay arin aad looga murugoodo weeyaan oo aad looga xumaado weey looga naxo maxaa yeelay hadiiba aad isku hal qofkii aad isku haleyn lahayd oo miriyaha ku agdhigan lahayd aad iska ilaalinayso in iska xijaabtay ay noqoto muxrimka ku ahaa dabcan waxa adduunka waxa taagan ba haba guursan haba aadin haba raadsanine bannaankaaga marba ku qabanaysa laana qofkii aad aamini lahayd noloshaada ku aamilay miriyaha ku agdhigan lahayd muxrim ku ahaa haduu waxa ku dhaqaaqayo sameeyo maxaaba ka guursanaysa dayib qofka shaarica taagan oo shaarica marayo ajnabi ka ah iyo isaga baday suu kamid u yihiin oo soo kamid isugu kin dhaqmayaan hadii iskugu mid ay yani hal shay yani hal dariiqa ay kula dhaqmayaan maxaa ka doonaysaa ka raacisaaba runtii banaankiisa maraliye maradigeed ma qabsato ina banaankiina joogtaan ama idin qurux badan tahay dumaro bal ku sii socda hadalko ila yara dhageysta hadalka inoo wad ta iga daba hari weysid ñaagta taada kale waxaa la dhahaa naayaa maslaxo muuqaal aad duubi kartid malaha askari yani dhahaayo waayo way dhahaani askari asma idal ina li aamusiyo adina hadashid go'aan ku gaarteen miyaani li handado no barada calanka Soomaaliya aan wataa Soomaali baan ahay wadankeygaan joogaa Muqdishoan joogaa cid igu gumaadi kartana mala sharcigana waa noo wada simeeyay markaan dib geysto dibkeyga in la igu xiro hadan dib geysto oo wixii oo waajibkeyga oo aniga marka sharci ugu qabto liimarsi diyaar ah laakiin anoo dib geysanin inaan baqoon cabsado maba ahanbo ani dib aan geysto mal sharcigana maba ka cabsanaay sharcigan ka cabsanaay mal qof dambiilaha sharciga ka cabsado way ani dambiile maba ihibo soo ma ahan dambiile maba ihibo hadda kadibna cabsi ma taalo meel aan soo socdaan malahan meel aan taagan hadaa soo istaagtidna bartaasaa lagu marsiinaa mindi meelan taagan hadaa soo istaagtid yaa in lagu jikayaa lagu dilaa ma fahantay gacmaheyma iskaa wasaqeynay ana ma fahantay gacmaheyma iskaa wasaqeynay gacanteeda kuma saaraay waayo inaan kula hadlo inaan wax ku dhaho aab iska jeceshahay meel kastana balooga ka saar waxay tiri muuqaal inaan soo duwin ba askar la igu soo dalbaday tiri askari waa isoo wacay wuxuu ileeyahay maslaxa miyaha muuqaal dambe soo duubi kartid adduunka xagee ka dhacday ama kaga jirtaaba in يعني ليسكو هنددو waxa ma sameyn kartid dabcan malacag buu soo siiyay say sheegayso ma siyaabo kale u soo yani suuq keenay askarka intuu gabadha soo waco xaq ma buu lahan because inuu gabadha nafteeda badbaadiyo xaq u leeyahay ninkan askariga hadeeba jirto inuu soo wacay askarigaas oo dhahay ma soo dubi kartid muuqaal marka hadli karta faarahaas dabcan waxa waaye nin la soo adeegsaday anu saasay ila tahay dabcan haduu jiro weeyaan hadii deemal awal ay tahay iska sheeganaysa Allahu a'lam waxaan laba qof oo istagaashay oo mid caloosh ka soo jeeda hadaad aragtid ha u garqaadin kii uu ka soo tagayna dhimaya ma ogide marka anagu ma ogin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ka ah marxaati ka ah laakiin anagu ma ogin Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan arintan og Allahu a'lam say gabadha hadalka u dhigto baan aniga soo qaatay walaalahayga qalbiga runtii markaan arintoodan ayaamahan dhan waa arkayay aan social media dhageysanayna runtii aad baan ula yaabanaayo dadku dhan baa soo wada qaadanay laakiin anigu waa markii koobaad aan soo qaatay markana ma soo qaadan lahayne arrimahan foosha xun oo aan la yaabay oo meesha yimid aawadeed baan u soo qaatay walaalahayga qalbiga haddii ay tahay marka koobaad soo boqotay channelkeena Sheemi Sharaf fadlan subscribe-ka naga ilaawin ra'yigaagana waa noo muhiim qaybta commentiga noogu reeb maxaa la yidhahdayey gambareelka nafrad si aad u noqotay daawadaha koobaad ee daawada barnaamijyadeena waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu